giri shirkan ayaa shalay kalinkii hore wuxuu golaha si guud ula kulmay madaxdii ka socotay dawladda ku meel gaarka iyo maamulada hoos yimaada Puntland iyo Galmudug iyagoona isla afkartay in bisha foodo lagu saayso shir loo dhan yahay lagu qabto dalka gudihiisa galabnimadana waxaa golaha ammaanku si gaar ah ula kulmay shir albaabada u xidhan yihiin la yeeshay mas'uuliyiinta ka socotay jamhuuriyadda Somaliland gabagabadii shirkana waxaa warbaahinta dibadda kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen golaha ammaanka maanta waxaanu waftigii ka socday dawladda Somaliland waxa ay kulan gaar la yeesheen jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaha ammaanka oo maanta halkan Nairobi shir ku qabtay shirka Somaliland iyo golaha ammaanka dhexmaray waxaanu kaga hadalnay qadiyada Somaliland dhanka siyaasadda iyo xagga nabadgelyada waxaanu ka bixinay warbixin maaxiishii kala gudbisnayd ay Somaliland soo martay hadee tahay nabadeyntii hore daldhiskii iyo dawladshadii iyo dimuqraadiyadii iyo qorshooyinka cusub ee xukuumadda maanta ka jirta Somaliland ay leedahay xagga horumarka xagga siyaasadda iyo xagga nabadgelyada intaba waxa kaloo noo suura gashay inaanu afkaar isweydaarsano golaha ammaanka ku saabsan arrimaha oo ka wada hadlay waxa kaloo ay Somaliland u gudbisay golaha ammaanka warbixin gaar ah oo ka turjuysa dareenka iyo shacabka Somaliland nabadgelyada dhaqaalaha iyo arrimo kale intaba wadahadaladaasna waxay dhacaysiin aad iyo aad wanaagsan waxaan jecelahay halkan inaan mahadnaq ugu soo jeedino golaha ammaanka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa fursadda ay siiyeen dowladda Somaliland mas'uuliyiinteedu inay shir gaar ah la yeeshaan oo ku saabsan qadiyadda Somaliland oo markii ugu horeysay Somaliland ay fursaddan oo kale hayso intii 20 sano hore jirtay dambada waxay ahayd fursad wanaagsan oo loo suura gelisay inaan la wadaagno dareenka iyo afkaaraha hay'adda ugu sareysa adduunka adduunka wadaato anuu shirkadu waxaa shir gaar ah dabcan golaha ammaanku wuxuu saaka la lahaa shiran Soomaaliya kooxaha siyaasadda Soomaaliya kala gudban laakiin shirkadu waxaa galabta shantii galabnimo wuxuu shir gaar ah oo dhexmaray Somaliland mas'uuliyiinta oo arka Soomaaliya la taagan iyo golaha ammaanka waxaan ka hadlaynay maslaxadda waddanka Somaliland meesha maahan madan Somaliland kaga hadlaysay ama golaha ammaanka aanu ka filaynay inuu ictiraaf siyaasadeed Somaliland ictiraaf korto cabbixiyo dowladda madaxda member states golaha ammaanku waa golo caalami ah oo dunida adduunka wadaagto laakiin laga hadla arrimaha nabadgelyada arrimaha horumarka iyo dhinacyada kale horumarka intaba